amiga channel-yaal soo dhawaada dhamaantiin mar kale meel kastoo aad joogtaan waxaan rajaynayaa inaad soo daawatay qaybtii ka horeysay ee fiidiyoyadeena taxanaha ah ee korsadan aan ku duubayno dabcan haddii aad halkan soo gaarto waxaan rajaynayaa inaad tahay qof forex-ka wax fiican uga bilaaban yihiin practical badan kusoo sameeyay waxyaalihii aan uga soo hadalnay basics-ka waxaan rajaynayaa sidoo kale inaad fiidiyoyada faraha badan ee 2 sano ilaa 3 sano u dambeysay aan duubayay YouTube-ka iyo meelahaas yaallay inaad soo daawatay because from here waxa aan ka hadlana wuxuu noqonayaa wixii la isticmaali lahaa ee lacag lagu sameyn lahaa marka waxaa la rabaa inta isku dii kartid inaad dib basics kaga soo dhistid halkan wixii ka dambeeya buugi qalin soo qabso qoraallo badan oo waxaa jiri doona meeshaan aan soo saari doono oo la rabo inaad qoratid deetna practical aad ku samaysid halkan haddii aynu soo gaarnay waxaan dhisaynaa trade-keenii waxaan rabnaa sidii aad ku noqon lahayd xirfadle isagu suuqan keliga ka ganacsada waa inaynu diyaarino waxa la yiraahdo steps-ka qaadi lahayd hadalkaasi macnaha cusub steps ayaa la rabaa inaad qaadid so step koowaad aynu qaadino waxa weeye in lacag aan soo kala bixino waxay rabtaa aad waa inaan naqaano structure-keeda sidee ayay u taalaa lacagtan ma lacag kor u jihaysan ba mise waa lacag hoos u jihaysan saas daraadeed videoga waxaan kaga hadli doonaa wax loo yaqaano market structure wuxuu noqon doonaa xoogaa yara advanced soo waxaan rajaynayaa haddii aad soo daawato kuwi kale inaad waqtigeedii joogtid lamana rabo inaad hal qodob ku dhegtid marka market structure laga hadlo ha oran forex-ka dhan waa market structure-kan kaliya hore ayaan video uga duubay 2018 mid kale ayaan ka duubay taxaniya ayaan akademi ku jiray kana waa markii saddexaad waxaan isku dayayaa markaan intaan sii fududeyn karo inaan qaab dhismeedka suuqa sii fududeeyo mid xisaabta ku darso way jiraan dad iyagu market structure-kan ama habka suuqa u dhismo mawjadaha suuqa u dhismaan kaliya ku kooban oo wax kale isticmaalin inagu intaa waynu ka badnaan doonaa market structure wuxuu noqon doonaa hal kubad oo kamid ah kubado badan oo la rabo inaad hal mar cirka u wada joogtid deetana kuligooda gacanta ku wada qabatid si aad u noqotid sarifle isku filan dabcan haddii aynu ku bilowno casharkeena qaybta market structure-ka waxaynu marka hore qeexi doonaa market structure wuxuu yahay iyo waxa laga wadaa dabcan market structure waxaa laga wadaa sida halka kaaga muuqata waa qaabka uu suuqu u dhismo qoraaladan waxaan usoo qoray oo usoo diyaariyey in aad computerka intaad bows ku qabatid videoga ama mobilka meesha ka daawanaysa aad qoratid kadibna mar labaad videoga daawatid haddaba market structure marka la qeexayo maxaa laga wadaa waa qaabka uu suuqu u dhismo isagoo oo ku soconaya nidaam shaxamaysan shaxan waxaa la dhahaa structure oo loo yaqaan trending market ama suuq jihaysan qaab dhismeedka suuqu waa marka aynu taxliilinayno waxaynu la kulanaa in qiimaha suuqu uu laba gees midkood u jihaysan yahay fahamka iyo taxliilinta geeska uu suuqu u jeedo ayaa waxaa loo yaqaan trend structure waa hagaag haddii aan ka koowaad ku hormarno waa suuq kor u jihaysan alright suuq waxaan ka wadaa kor u jihaysan suuqa kor u jihaysan maxaa lagu gartaa dabcan sida halkan ka muuqata ama qoraalkan ka muuqata suuqa kor u jihaysan waxaan idhi waxa uu samaystaa taxanayaal ama series of higher lows and higher highs saxanayaal wuxuu samaystaa ama wuxuu isku xijiyaa higher lows iyo higher highs ilaa ugu dambeynta uu ina tuso in laga soo hoos maray higher lowga u dambeeyay si aad u ogaatid baan ku idhi in suuqu uu kor u jeedo waa muhiim halkaa si fiican xusno inaad soo heshid suuqii hoos u socday ee isaga ka horeeyay in uu dhamaaday suuqa alada abtran buu socdaa suuqii down trendka uu meesha ka saaray horta soo hel kadib soo hel dhaqaaqii u horeeyay ee bilaabay in uu suuqu kor u dhaqaaqo abtranka soo heshay dhaqaaqis koo soo hel kadib dhaqaaqaas adiga oo ka bilaabaya ayaa la rabaa in uu samaysto hoos cusub higher low kadibna uu samaysto kor ka sii koreeya higher high kadibna waa inuu suuqu qaabkaas ku socdo higher low higher high higher low higher high alright tusaalahan waa kana waxaan ku yidhi suuqa aleeda waa uptrend inta aad uptrendka ku dhawaaqin inuu uptrend yahay uptrendkan khasab waxa ah inuu down trend meesha ka saaray down trendkii uu jabiyey soo hel down trendkii meesha uu ka jabiyey waa kana oo lower high-giisii ayuu ka soo maray dhaqaaqa koowaad sida aragti waxaan ku qornay low iyo high kadib muxuu samaystay higher low higher high higher low higher high ayuu samaystay dabcan su-aasha meesha ku jirta waxa weeye higher lowgan waxa uu keliya higher low noqon karaa marka dhaqaaqa isaga kasoo bilowday okay dhaqaaqa isaga kasoo bilowday marka uu ka kormaro higher high-gaagi kugu dambeeya higher high-gana kugu dambeeyso maaha dhaqaaqa higher lowgan ka bilowda ee halkan ka kaca waa inuu higher high-ga ka sara maro si uu u mutaysto darajada higher lownimada hadda maxaan ku yidhi waa inuu suuqu mar walba ka kormaro korkii u dambeeyey
si uu kor ugu sii socdo balse haddii uu kusoo laabto hoostii u dambeysay ee higher lowga ahayd oo uusan ixtiraamin deedna uu kasii hoos maro sidaasna uu ku samaysto hoos cusub oo hoostii hore kasii hooseysa oo ah lower low haddaba inuu suuqu lower low samaystana waa calaamad loo yaqaano suuq hoos u jihaysan mar haddii aad lower low aragtina waxay ka dhigan tahay in jihadii suuqu isbedelay tusaale ahaan halkan ayuu suuq ku socday higher lowgan waxaa la rabay in aan laga soo hoos marin because haddii higher low laga hoos maro maxaa la helayaa meesha low haddii laga hoos maro lower low ayay noqonaysaa baashan oo lower weeye kan iyo kan bay ka hooseysaa lama rabin waxaa la rabay inuu meelahan istaago sida kuwan oo kale ay u ixtiraamayeen deetana uu kor usii socdo balse ma aysan dhicin waa la soo jabiyey haddaba ilaa aad sidan ka aragtid oo higher lowyadii suuqu uu samaystay oo kuwan ahaa midkood ilaa lagu soo laabto higher lowgan laguma soo laaban oo lama jabin oo waxaad arkaysaa in halkan loo jirsaday oo intaanoo dhan baa ka dhimanad in lagu soo laabto meel 50% isaga u jirta ayaa laga laabtay higher lowgan sidoo kale fiiri isagana lama jabin laakiin kan maxaa ku dhacday waa lagu soo laabtay higher high cusub baa yimi sida arkaysa halkan deetana wuxuu kusoo laabtay higher lowgan dib kusoo laabtay oo meesha ka saaray markay sidaas dhacdo waxaa halkaa ku dhammaanaya suuqa uptrendka iyada oo real market ahna waynu fiirin doonaa suuqa downtrendkana waa intaas oo dhinaca kale loo rabay okay ama suuqa hoos u jihaysan downtrendka suuqa hoos u jihaysan waxa uu samaystaa taxanayaal ah lower highs iyo lower lows ilaa ugu dambeynta uu ina tuso in laga soo kormaray lower high u dambeeyay haddaba maxaan ku yidhi si aad u hubsatid in suuqaagu uu yahay mid hoos u jeeda iska soo hubi in suuqani uu jihadiisii hore ee kurusacadka ahayd uu dhammaaday jihadan korka u socotay lowgaana dhaqaajiyey dhameeyey dhaqaaqan marka uu yimi waxaynu officially helnay inuu meeshan ka bilaaban karo downtrend goormaan downtrendka dhihi karnaa wuu bilowday marka ugu horeysa lower high aan helno kadibna lower low aan helno and then maxaa ku xiga lower lowgan lower high baa ku xiga lower low baa ku xiga lower high baa ku xiga lower low baa ku xiga kadib ugu dambeyntii maxaa dhacay lower highgan sidii kan iyo kaas loogama xishoon ee lama ixtiraamina waa la soo jibiyey waa laga kormaray mar haddii suuq downtrend ahaa lower high u dambeeyey laga soo kormaro waxay ka dhigan tahay suuqu inuu isbedelay okay sida halkan ka muuqata waa inuu suuqu mar walba uu ka hoos maro hoostii u dambeysay hoostaana u dambeysay hoos cusub baa la helay hoostaana u dambeysay hoos cusub baa la helay hoostaana u dambeysay hoos cusub baa la helay oo lower low kadibna waxaa arkaysaa in maxaan ku yidhi oo meesha korkii u dambeysay lower high usa nidaamkii halkan waxaa ku yidhi haddiise uu suuqu kor usoo laabto oo uu meesha ka saaro korkii u dambeysay ee lower high ahaa uusan nidaamkii hoos u socodka ahaa uusan ixtiraamin halkaas waxay ka dhigan tahay in suuqii downtrendka ahaa u dhammaaday hob inaad ku qabsatid pause deetana sidaan u sawiray oo kale aad warqadii qalin ugu sawirtid deetana aad qoraaladan qoratid okay intaasi waa nooca trendiga inta aanan marka wax kale u gudbin waxaan isku dayayaa in aan suuqa ku eegno marka waa yahay alright anigoo isku dayaya inaan qoraalkaygaasna aanan ilaawin alright suuqa caadiga ah ayaan doonayaa inaan ku tuso halkan waxaad ka arkaysaa suuq ayaa wuxuu kusoo socday waxaan leenahay halkan suuq downtrend waa ka bilowday suuqan downtrendka ah inta aadan ku dhawaaqin inuu downtrend yahay soo hel uptrendka uu meesha ka saaray uptrendka uu meesha ka saaray saa usoo heshid uptrendkaas waxaa la rabaa inaad soo heshid last higher highgiisi last higher high uptrendkan mee waa kana wey higher highgan higher lowgiisi mee higher lowgiisi waa kana higher lowgan ma laga soo hoos maray of course waa laga soo hoos maray oo dhaqaaqan ayaa ka soo hoos maray kadibna suuqa muxuu bilaabay lower high lower low lower high lower low lower high lower low ayuu bilaabay oo ah downtrend sax and then waxaan aragnaa downtrendkan in sidoo kale la jabiyey oo isagana lagu soo laabtay or even we can say tan oo kale waa one move base ku tahay waa from lower high to lower low kana waa lower high ku xiga kana waa lower low u dambeeyay lower lowgan u dambeeyay ee suuqa lower high-giisi soo qabo lower high-giisi mee lower high-giisi waa kana momentiga lower high-giisi la jabiyey waxaa leedahay downtrendkan uu dhammaaday isagana dhaqaaqa lower high-ga jabiyey mee kana isku dayay inuu jabiyo uu jabin waayo uu soo laabtay ugu dambeyntii uu jabiyey mar alaale marka movekan ah xaqiijisid waxaa leedahay suuqaada wuxuu ku socdaa uptrend ayuu ku socdaa oo muxuu samaysanayaa uptrendku wuxuu samaysanayaa higher high higher low higher high higher low higher high higher low higher high haddii aad aragtid in higher lowgaaga u dambeeyay lasoo jabiyey maxaa leedahay suuqan higher high u dambeeyay waa kana
higher lowgiisina waa kana the momentiga higher lowgiisii laga soo hoos maray maxaa meeshii ka bilowday meesha waxaa ka bilowday downtrend alright downtrendkani mid mustaqbal weyn lama uusan ahayn muxuu sameeyey hal dhaqaaq buu sameeyey marka koowaad uu lower high sameeyey lower low sameeyey lower lowgan lower highgiisii markii laga soo sara maray maxaa leedahay dhaqaaqana isku dayay inuu ka sara maro uu ku fashilmay ugu dambeyn kana ka sara maray and halka maxaa ka bilowday another uptrend I hope inaad ideyada fahamtay meesha aan u wada nuxurka macnaha meeshan ku jira waxa weeye marka suuqaani ilaa aad xaqiijisid higher highgan higher lowgiisa in laga sara maray ama lower lowgan lower highgiisa in laga sara maray tradiga jihadiisa ayuu suuqu sii socon doonaa so haddii aynu kusii soconno marka haddii aynu kusii soconno waxaa la yidhaahdo sharaxaadeenii qoraalkii xaggee ayaa iga aaday yaa waa kana haddaba maxaan ku xijinaynaa halkan suuq hoos u jihaysnaa ama downtrend waynu isla aragnay isagana kan ayuu ahaa haddii aan kasoo gudubno marka halkaa waxaa ku xiga oo kale wax la yidhaahdo noocyada mawjadaha suuqu wuxuu samaystaa wax la yidhaahdo mawjadu waa maxay suuqa jihaysan aynu hadda soo qeexnay ee ahaa uptrendka iyo downtrendka marka uu kor ama hoos u socdo waxa uu ku socdaa nidaam mawjada ah ama wax loo yaqaano waves mawjadaha uu suuq walba mawjadaha suuqu waa laba nooc oo mawjad ayuu suuqu sameeyaa waxaan loo kala yaqaanaa impulsive wave iyo correction wave wax badan ayaan kasoo hadlay waveskan impulsive wave waa mawjada weyn ee u jeeda dhanka trendiga suuqu uu u jihaysan yahay correction wave iyana waa maxay waa mawjada gaaban ee nasashada ah ee u jeeda cagsiga jihada suuqu u socdo waa kuwana mawjadaha aan ka hadlayo exactly halkan suuqan downtrend buu ahaa dhaqaaqa weyn ee trendiga suuqa dhinaciisa u jihaysan impulsive wave ayaa la yiraahdaa dhaqaaqa soo laabanayana waxaa loo yaqaanaa correction wave ayaa loo yaqaanaa dhaqaaqa hoos soconaya maxaa loo yaqaanaa impulsive wave ayaa loo yaqaanaa correction wave impulsive wave marka opposite-ka loo joogana yaa impulsive ah kan baa impulsive ah jihada suuqa u jeeda muxuu noqonayaa impulsive keeni kan ayaa noqonaya jihada suuqa u jeeda soo ma jeedid correction keenina kee noqonaya correction keenina waxaa noqonaya midka cagsiga ah ee ka soo horjeeda isaga alright marka maxaan ku yiri halkan qoraal ku waran waa maxay impulsive wave waa mawjada weyn ee u jeeda dhanka trendigu suuqu u jihaysan yahay haddii downtrend yahay dhaqaaqa weyn ee hoos socda waa impulsive nasashada soo laabadka ah ee inoo sameynaysa marka hoos loo jeedana lower high marka kor loo jeedana higher low inoo sameynaysa waa correction wave weeye marka si loo eego okay suuqu marka nidaam noocaana oo mawjado sidaan oo kala ah ayaa uu ku socda haddaba waxaa jirta wax la yiraahdo trend extension oo sometimes dhaca trend extension maxaa laga wadaa marka waxa kale oo xusuud mid baan ku yiri in badanaa impulsive waveska trendigu ay noqdaan saddex dhaqaaq oo jihada uu suuqu dhinaceeda u jeeda halka correctionku uu noqdo laba dhaqaaq oo iyada ka soo horjeeda kuwaas oo isku geyn noqon kara shan dhaqaaq sida uu ikhtiraacay ninkii la oran jiray Elliot waxaana nidaamka loo yaqaan Elliot waves dabcan si Elliot waves ku garanaysaan suuqu waxa uu samaystaa shan mawjadood oo ah impulsive correction impulsive correction impulsive waa 5 waves ayuu ku socdaa suuqu hadhowna marka uu dhamaysanaya cycle-ka waxaa jira 3 wave oo correction oo gaar loo barto balse inagu hada trend ayaynu ka hadlaynaa so trendigu shan dhaqaaq ayuu sameeyaa sida caadiga ah hase ahaatee waxaa xusuud midan marmarka qaarkood waxaad arki kartaa suuqii shanta mawjadood ahaa oo 4 mawjadood oo dheeriyo ku darsameen deedna noqonaya 9 deetana mar walba oo trendigu uu sii dheeraado 4 kale ayaa ku darsamaysa tusaale ahaan 5 ayuu ahaa 4 marka lagu daro 9 ayuu noqonayaa kadib 13 haddii 4 kale lagu sii daro haddii 4 kale lagu sii daro 17 haddii 4 kale lagu sii daro 21 sidaas ayuu ku soconaya haddaba maxaa xusuud mudan intii doonta ha noqdaan waveskan kaliya adiga waxaad ilaashataa in aad trendigaaga la jabin kor iyo hoos mid u socday kaliya adiga waxaad iska ilaalisaa in lower high-gaagii aan laga soo hoos marin lower high-gaagii aan laga soo hoos marin hadduu downtrend yahayna waxaa loo yaqaan waxaan ka wadaa higher low-gaagii hadduu uptrend yahay hadduu downtrend yahayna lower high-yadaada inaan laga soo hormarin ilaasho haddaba marka uu suuqu hoos soconayo sidaanoo kale ayuu ekaan karaa tusaalahaan oo kale maxaynu ku ogeyn inuu Elliot wave ku samaysta maxay 1 2 3 4 5 soma sometimes wuxuu noqon karaa 6 7 8 9 ayuu noqon karaa sometimes wuxuu sii socon karaa 10 11 12 13 buu noqon karaa mar walba 4 more waves ayaa kusii darsamaya marka ereyga extension waxaa loo siiyey oo ideyada asalkeedu anigu ma raba inaan hadda ku baro waxaa la yiraahdo Elliot waves iyo extensions iyo waves iyo waxa ma ku trade gareynayna waa inaad si fiican u fahamtid
okay halkan maxaan ku yiri waveskan kuma trade gareyno ee kaliya waxa inoo muhiim ah inaan suuqa jihadiisa ka soo horjeesan marka maxaan qodobkan u soo xusay hadiiba aanan ku trade gareynin waves maxaan u xusayaa 9kan wave 13kan 17kan 21kan mafahmasa waxaan u xusayaa inaad suuqa jihadiisa ka hor imaan sababtoo ah qodobka ku xiga waxaad ku baran doontaa waxa loo yaqaano demand and supply zone oo noqonaya laf dhabarka istaraatiijiyadeena oo dhan laakiin demand and supply zone kuma shaqeynayso hadii aadan trendiga fahmin trendigu maxaan ku yiri waa impulsive correction kaas inta uu socdo hadii ay up loo jeedo suuqa abura hadii hoos loo jeedana suuq hoos ura su'aasha marka igu kaliftay inaan xuso qodobkan extensionka ah iyo Elliott wave waxa weeye dad baa waxay rabaan iyadoo aan la jabin trendigi inay ku dhahan suuqa hoos u raacaya salaan suuq baa wuxuu socdaa kor wuxuu sameeyay impulsive correction afar impulsive oo weyn buu sameeyay qofkaas wuxuu rabaa inuu trade-kii soo galo inagu miyaa soo galanaa waa may kaliya anagu trade-ka waxaan soo qaadanaynaa haddii baan ku iri suuq uptrend baa soo maa dhaqaaq buu sameeyay higher low wuxuu sameeyay higher low kan haddii uu higher high ka kormaro maxaynu helnay official higher low ayaan helnay maxaan ilaashanaynaa meeshaas inaan laga soo hoos marin baan ilaashanaynaa haddii meesha laga soo hoos maro suuqa waxaa baa igu raadis waa qalad maxaan sugaynaa mid cusub in la helo mid cusub haddii la helo tay ilaashanaynaa mar walba higher low ugu dambeeya ilaashanaynaa haddii sidoo kale mid kale cusub la helo maxaan ilaashanaynaa ayadaan ilaashanaynaa maanta oo dhan waxaan ilaashanaynaa inaan higher lowga laga soo hoos marin sababta extensionkan u xusay waxa dhici karta marka marba waxaa laga yaabaa in uu 13 jeer kor u sii socdo ilaa ugu dambeyn laga soo jabinayo meesheenan haddii meesheenan la soo jabiyo waxaan u ololayn doonaa fursadda down trendka ah ayaan la qabsan doonaa oo fursado sala ayaan ka raadsan doonaa haddii aysan sidaan dhicin oo aan laga soo hoos marinna maxaan raadsanaynaa mar walba oo higher high aan helno waxaan iska ilaalinaynaa higher highgaas higher lowgiisa inaan la gaarin oo meelahan baa waxaan ka raadsanaynaa wax la yiraahdo wax liquidity la yiraahdo hadda aad baran doontid oo ah inaan fursad cusub oo buy suuqan si qaadano lama rabo inaad tiraahdo suuqan waxaan oo buy ku sii socday maxaa buy ugu sii galaysaa because waxaa dhici karta in extension ay sameeyaan oo uu suuqu iska sii dheeraado ilaa mar walba 5 wave dhacdo 4 ayaa ku darsan karta mar walba 5 wave dhacdo 4 ayaa ku darsan karta haddaba waxa laga rabaa videogan dib u daawo ku celceli waxaan ka hadlayo marka koowaad isku dayna fahamtay suuqa uptrendkaas uu dhismaa suuqa uptrendka wuxuu dhismaa waan ku yiri maxay higher high higher low higher high higher low higher high higher low illa goormuu socon karaa inta asaasiga oo asalka badana waa 5 wave sida uu sheegay nin stock market ka trade gareyn jiray oo legend ahaa oo la oran jiray Ralph Nelson Elliott oo keenay ikhtiraca Elliott waves la yiraahdo inagu Elliott waves kuma trade gareynayno istaraatiijiyada rabin aan ku baro ama ujeedka casharada maxaa marka rabaa inaa fahamtid waxaan rabaa inaa fahamtid inuu trend extension wax la dhici karto oo market structure-kii aa 3 dhaqaaq oo dhinaca jihada u jeeda sugisay way dhici doontaa 95% 3 dhaqaaq ayaad heli doontaa laakiin sida hadda euro USD iyo euro waxa ka wadaa euro USD iyo AUD USD sida hadda ka socda ilaa 12 dhaqaaq baa heli kartaa sometimes ilaa 13 dhaqaaq baa heli kartaa maxaa la rabaa marka adiga trendigaas ilaa haddii uptrend uu ahaa lower higher lowga ayaa kuu muhiim higher lowga haddii la jabiyo trendiga uu dhammaan okay qodobkan waxaan aaminsanahay anigu inuu yahay qodobka ugu adag guud ahaan nidaamkeena oo dhan sababtoo waxa kale oo dhan waa wax aad u basiida haddana waa qodobka waqtiga ugu yar ay ku bixiyaan ardayda qof walba intuu isdhaa trendiga waa fahamtay waa up down iskaga gudbaya hadda waxaa arkaysaa kiyo suuq down trend fursad baa ay ka raadinaya ama kiyo suuq up trend fursad sala ka raadinaya no always find suuqu hadduu uptrend last higher high iyo last higher low soo hel waa meelaha barakaysan ee muqaddaska ah ee sacredka ah ee khasabka tahay inaad baratid haddii any trend aa soo qabatid where is the last higher high where is the last higher low hadduu uptrend yahay hadduu down trend yahay maxaa raadinaysaa where is the lower low where is the last lower low where is the last lower high maxaan ka rabaa last lower low iyo last lower high because waa meelaha go'aaminaya inuu trendigi kala wareegayo in kale tusaale haddii last lower low aa soo heshay maxaa raadinaysaa lower lowgaas lower high ay ka soo bilaabatay kadib lower high-ga calaamadso haddii laga kormaro uu dhammaaday down trendkaas fursadda cusub nidaamka demand and supply zone-ka ayaan ku raadsan doonaa marka videogan dhowr jeer ku celcelin inta aanan ka gudbin haddii aan mid iyo labo aan tusaalayaal soo qabsano
sida hadda halkan ka arkaysid suuqan waa euro USD waxaa laga yaabaa intaan keligeed inay 5 tahay deetana 4 uu ku daro deetana uu 4 ku sii daro deetana uu 4 ku sii daro deetana uu 4 ku sii daro ilaa waxaa laga yaabaa trendigani inuu 11 dhaqaaq inuu socdaa dhici karta ama 13 dhaqaaq iyo ka badan ayaa dhici karta inuu socdo waxaa laga yaabaa meeshuu rabo wax ka soo bilowday in extension waxa laga wadaa inuu sii bato oo marba marka dambaysa uu kor u sii socdo ayaa dhici karta ma fahamsa like this so much ma iska daa halkan inuu ka soo bilowday ayaan ka qaadanaa because that uptrend waa la soo jabiyay sida arkaysid downtrend kana soo jabiyay so from here hadan ka bilowno so much iska sii soconaya ilaa iyo muddo waa iska sii soconaya hadda maxaa filanaa another higher hadda imisa xabaa la marayaa 1 iyo 2 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 6 7 8 9 10 11 ba hadda la maraya soo ma jeed hadii waxa la maraya hadda 10 baa la maraya oo kana 9 ku ahaa tii 10aad ba hadda la maraya so hadda like that 4 baa ku darsamay so maxaa sugaynaa 4 inay ku sii darsanto cusub 9 kana hadii 4 ku sii daran maxay noqonaysaa 13 inuu saa u sii socdaa ayaa dhici karta ilaa aad heshid official higher low la jabiyay hadda official higher low ma ay suuqan waxa raadsanayaa higher high ugu dambeeyay ee suuqa waa kana higher high gan xagee ka soo bilowda waxaan yarar ka ma xisaabsanays because they are not enough pullback enough correction ma higher low geedi waa kana ilaa meesha laga soo jabinayo aniga suuqan buy kaliyan ka raadinaya ilaa tan laga soo hoos marayo suuqan aniga buy kaliya ayaan ka raadinaya hadii aad fiirisid iminka USD CAD fiiri hadii aad USD CAD fiirisid same thing oo dhinaca kala ah even though aan arkaya hadda in la soo jabiyay oo last lower high in hadda la soo jabiyay aan arkaya laakiin hadaa fiirisid suuqan sida u soo socday arag even though waxaan dhan extension uu yahay laakiin hadii aan kan u xisaabsano 1 hour keenina oge day waxaan oo dhan downtrend buu ah waxaad arkaysaa suuqan inta uu socday oo fiirso halkaan uu ka soo bilowday sama this was the move pullback move correction move correction move correction and then move correction so ma ujeedid and then finally maxaan helnay the last lower low of the market last lower low of the market waa la isku dayay in la jabiyo waa la jabin waayay uu soo laabtay suuqu markii labaad ayaa la jabiyay now waxaa meesha laga saaray the last lower high of two lower highs baa meesha laga saaray now waxaan u ololeynayaa fursadda bayga ee suuqa ayaan ololeynayaa inuu suuqu hadii kow uu bayaado oo aniga meeshaan bayga uga sugayay suuqan inuu ka kala wareego demand zone-ka laakiin hadaa fiirisid imisa dhaqaaq ayuu suuqan sameeyay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dhaqaaq sida arkay no 13 kana ku ah soo muujeedid marka maxaa laga hadlayaa sometimes sidoo kale ayaa la kulmi kartaa sometimes maxaa la kulmi kartaa just classic three waves ayaa la kulmi kartaa the classic original three wave down three wave up baa la kulmi kartaa trendy ah marka maxaan anigu u soo xusay qodobkan waxaan u soo xusayaa wixii aad la kulantidba sababtoo kale meeshaan last lower high ay ahayd last lower high gan last waxaan ka wadaa lower low ay ahayd last lower high geedi waa kana the moment la jabiyay waa marka halkan laga kacay oo kala jabiyay then maxaa ka bilowda halkaas three big waves ayaa halka ka bilowday wave koodne waa kana pullback to watana wave koodne waa kana pullback to watana wave saddexaadna waa kaas wuxuu noqonayaa 1 2 3 4 5 last higher high waa kaasa higher low gisime waa kana momentigii la jabiyay meeday waa tana mar alaala marka ayada la jabiyay maxaa xisaabsanaysaa haddana a new downtrend from high to a low sama and then lower high and then you have a lower low and then you have a lower high and then you have a lower low and then ugu dambeynta isagana waa la jabiyay lower high marka la jabiyay imisuu ahaa 1 2 3 iyo labadiisii pullback taha original classic 5 waves daba maxaa laga rabaa from now on in aadan oran
in aad oran saddex dhaqaaq kaliya xisaabsanaya jihada suuqa iyo 2 dhaqaaq oo correction ah waxaan rabaa inaad suuqa jihadiisa fiirisid hadaa ku qiimeysid oo ay ku cadaad suuqa inuu uptrend yahay soo hel uptrendka meesha ku soo bilowday adigoo raadinaya downtrendkii uu cunay then hadaa rabtid inaad uptrendka inuu wili socdo hadaa rabtid inaad ogaatid dabagal waxaa ku haysaa last higher high iyo last lower high mar walba oo last higher high la helo waxaad raadisaa last higher lowgii uu ka soo bilowday labadaas ha ilaashanaysa labadaas hadii kor loo dhaafo higher high-ga wili uptrendku soo socda hadii la soo laabto oo higher low-ga la jabiyana uptrendku ku dhamaad downtrendkana maxaa mar walba ilaashanaysaa marka hore waxa ogaanaysaa uptrendku meesha ka saaray marka xaqiijisid in downtrend lagu socdo maxaa fiirinaysaa meeyay lower low-gii iyo lower high-gii lower low-ga iyo lower high-ga ayaa maanta oo dhan dabagelaysa hadii lower low-ga laga sii hoos maro fiican trendiga doon buu socdaa hadii lower low-ga aan laga hoos marin ee intii la soo laabto lower high-ga la jabiyana trendiga wuu dhamaaday sidoo kale maxaa baratay suuqa jihadiisa dhaqaaqa u jeeda impulsive baa waa dhaqaaqa la rabo inaad gashid mar walba correction kuna waa maxay waa nasashada la rabo inaad sugtid because hadii downtrend la yahay correction ku ugu dhamaanaya lower high oo noqon doonta meesha demand zone-ka iyo supply zone-ka laga raadin doono iyo dhamaan waxyaalaha kale ee isticmaalana hadaba video ku xiga waxaanu focus ku siin doonaa inaad once and for all si fiican u fahamtid demand and supply zone waxay yihiin ruuskooda sharciyadooda iyo sida suuqa looga dhaxlo hadaba inta aynu ku kulmi doono muuqaalka mid ku xiga dhamaantii waxaan leeyahay salaamu alaykum